sideed ku ogaan kartaa qof ku jecel jacaylku waa rabitaan ku beerma qofka waxaana qof kasta oo wax jecel lagu gartaa astaamo gaar ah oo inta badan soo ifbaxa xilli dambe oo jacaylku biyo dhigo qalbigiisa ragga ayaa uga nugul dumarka qarsashada jacaylka had iyo jeer dumarku waxay ku dadaalaan inaan si sahlan raggu u ogaan sirahooda jacayl oo iyaga oo qudha ay ku koobnaato haddaba astaamaha lagu garto gabadha ama ninka wax jeceli aad ayay u fara badan yihiin laakiin waxaan qormadeennan ku tibaaxaynaa dhowr qodob oo gabadha ama ninka wax jecel lagu garto mahmaah ingiriish ah ayaa tidhaahda labada qof ee sida dhabta ah isku jeceli lagamaba yaabo inuu ku yidhaahdo waan ku jeclahay midba midka kale balse way og yihiin waxaa ka dhexeeya waxaanay isku dareensiiyaan ficilo aad ka garan karto qofka sida dhabta ah kuu jecel hal qofka ku jecel si rasmi kuuma fiirin karo deymada ayuu kugu xadayaa marka aad dhinac kale u jeedana aad buu kuu fiiriyaa laba wax kastoo aad necab tahay qofka ku jecel wuu ka fogaanayaa adiga oo aan dhihin ka fogow saddex wuxuu jecel yahay inuu kuu soo dhowaado marka aad meel wada joogtaan afar dadka adiga aad jeceshayna wuxuu jecel yahay inuu ixtiraamo waxaad jeceshayna inuu jeclaado waxaa la yidhi nin ayaa jeclaa gabadh ay deris ahaayeen maalin kaste waxay wax ku tumi jirtay mooye ninkii baa markuu dhintay gurigiisa waxaa laga helay 40 mooye mid kale ayaa la weydiiyey qoraxda ka waran iftiinkeeda markaas ayuu yidhi marka heblaayo gabadha uu jecel yahay gurigeeda ay qabato ayay ugu iftiin badan tahay 5 mashquul kasta oo uu yahay kama maqnaatid xusuustiisa wuxuuna ku siiyaa naxariis badan iyo xanaanayn dantaadana ayuu ka hormariyaa tiisa waad mahadsan tahay waxaad noo tahay qof muhiim ah ka mid noqo ikhyaarta ku xidhan buuq maqal barta guduudan guji haddii aad ka heshayna suulka taag si uu gaadho asxaabta kale nabadgelyo kulan dambe iyo muuqaal xiiso leh oo dambe